waa kuma hogaamiyaha Muslimka ah ee isagoo 17 jir ah furtay Pakistan iyo waliba qaybo kamid ah Hindiya kana hirgeliyay boqortooyadii ugu horeysay ee Muslimka ahayd ee aaga ka talisa waase sidee tabta xun ee argagaxa leh ee uu halyeygan u dhintay barnaamijkan ayaynu ku soo qaadan doonaa haddii aad ku cusub tahay dhacdo sidee fadlan nagu soo biir oo ku xidhnow channelkan jasiiradda Yaquud loo aqoon jiray imikana ah dalka Sri Lanka la yiraahdo ayaa waxa ka soo shiraaqatay doon sidee dumar muslimiin ah sida oo kalena boqorkii halkaas ka talin jiray waxa uu hadiyado doontaas u soo saaray Hajjaj bin Yusuf oo isna ka talin jiray dhulka Ciraaq xilligii dawladii Umayyiyiinta haddaba doonidii oo badweynta Hindiya dhex mushaaxaysa ayay qabsadeen koox burcadbadeed ah kuwaas oo ka haysay haweenkii Muslimka ahaa sida oo kalena qaatay hantidii ay doonidaasi siday waxaana la sheegaa gabadh ka mid ah hablihii muslimiinta ahaa in ay ku barooratay yeedhmo ay Hajjaj ugu habar wacanayso taas oo judhiiba Hajjaj soo gaadhay aad ayuu Hajjaj dhacdada uga xumaaday waxaana uu guddoonsaday in uu yeedhmadii gabadha aqbalo Hindiya waxa ay xilligaas u qaybsamay 3 boqortooyo oo ay ka talinayeen 3 nin oo ilmo adeer ahaa lana kala oran jiray Daahir Lahor Dohor Daahir waxa uu xukumayay magaalo xilligaas magaciisa oo Daahir ahaa la oran jiray imika Xaydar Abaad loo yaqaano waxaana hoos iman jirtay maamulka xeebahaas iyo magaalooyinka ay budhactu ka soo baasho tageen sidaas awgeed ayuu Hajjaj ugu soo diray dhambaal degdeg ah oo uu ku amrayo in uu soo furto hablahaas muslimiinta ah Daahir wuu ka cagajiday arrintii oo waxa uu ku dooday in aanu garanayn budhcadu meel ay jaan iyo cirib dhigeen balse ma ay soo noqon jawaabtaasi mid Hajjaj qanacsa sidaas awgeed ayuu Hajjaj u soo diray ciidan muslimiin ah oo hablahaas soo furta waxaana ciidankaas hogaaminayay Abdullaahi bin Nabhan balse waa uu jabay ciidankani hogaamiyahoodina waa la dilay mar kale ayuu Hajjaj haddana soo diray ciidan kale oo uu hogaaminayo Budayl al-Badali isna sidii kuwii hore oo kale jab weyn ayaa soo gaaray waana la dilay hogaamiyahan waxaana Hajjaj loo keenay warka foosho xun leh iyo waliba in hablihii muslimiinta ahaa iyo ciidankii muslimiintuba lagu xidhay magaalo xeebeedka Daybal oo ah halkii ay ka soo duuleen burcadbadeedu magaaladan oo ku taala koonfurta Pakistan imikana Karachi ayaa la yiraahdaa labada jab ee soo gaaray ciidankii Hajjaj waxay ahaayeen kuwo fool xun oo sumcadiisii dhaawacay waxa uu isku diyaariyay in uu ciidan saddexaad u diro balse waxa uu ogaa haddii uu markana jabo guuldarro siyaasadeed oo weyn in uu la kulmi doono iyo walba falcelinta oo boqorka Umayyiyiinta ka heli doono waxaana ay arrintan ku beertay warwar weyn waxa uu sidoo oo kalena ogaa ciidankan saddexaad ee uu diraya cid ay la kulmayso awood badnideeda iyo dagaal aqoonnimada ay leedahay sidaas awgeedna waxa uu ka fikiray hogaamiyaha uu ciidankaas mas'uulka uga dhigi doono waxa uu taladii rogrogaba ugu dambeyntii waxa uu go'aansaday in uu 6,000 oo ciidan ah hogaamiye uga dhigo Maxamed bin Qaasim as-Saqafi oo ah wiil ay ilmo adeer ahaayeen oo 17 sano jira Maxamed 72kii hijriyada ayuu Daa'if ku dhashay 75kii hijriyada markii in adeerkii Hajjaj barasaabka Ciraaq iyo dhulka bariga ka xigaba laga dhigay ayuu isna adeerkii Qaasim oo Maxamed dalay u magacaabay barasaabka Basra intaa kadibna waxa uu Maxamed ku soo barbaaray Basra mar kale ayuu Hajjaj dhisay magaalo Waasil la yiraahdo oo uu ugu talagalay ciidanka iyo hogaamiyeyaashu in ay ku noolaadaan isla magaaladan ayuu Maxamed bin Qaasim u soo wareegay waxaana uu halkan ku bartay xirfadaha dagaalka iyo aqoonta siyaasadda isagoo kolkasta ku dhex jiray hogaamiyeyaashii abaanduliyaashii ciidanka iyo waliba madaxdii kale Hajjaj waxa uu ku qancay geesinimada maskax badnaanta iyo dagaal aqoonnimada Maxamed waxaana uu ka dhigay hogaamiyihii ciidanka isagoo horena ugu guuriyay inantiisii Subayda halkaasna Sodog ayuu ina adeerkii uga noqday Maxamed kolkiiba mas'uuliyadaas iskama aqbalin waxa uu ku xidhay 3 shardi kuwaas oo haddii uu Hajjaj oofiyo uu ciidankaas hogaaminayo waxaana ay kala ahaayeen shardiga koobaad in ciidanka sida ugu dhamayska tiran leh loo tabaabusheeyo saadkooda beelkooda agabkooda hubkooda iyo wax kasta oo uu ciidan u baahan karaba lagu sii qalabeeyo shardiga labaad iyo ka saddexaadba waxa ay kala ahaayeen in ciidankiisan uu wato ee bariga maraya ay barbar socdaan gaas ka mid ah ciidanka badda ee muslimiintu iyo in uu dagaalka wado ilaa uu furanayo dhammaan dhulka Sindhi oo ah halka maanta Pakistan loo yaqaano Hajjaj 3 shardiba waa uu ka yeelay oo ciidanku wax kasta oo uu u baahnaa amaba ay u baahan karayeen uu siiyay xataa irbadihii iyo dumihii maryaha ay ku tolanayeen kamay maqnayn waxaana qarashkii ku baxay uu ahaa 60 milyan oo dirham taas oo xilligaas ahayd lacag aad iyo aad u faraweyn 17 jirkan oo 6,000 oo ciidan ah horkacaya ayaa duulaankii bilaabay intii uu sii socday waxa uu furtay magaalooyin fara badan ilaa ay aakhirkii maalin Jimco ah ciidankii bariga marayay ee uu watay iyo gaaskii badda ku soo jirayba ay ku kulmeen magaaladii dhufaysyada adag lahayd ee Daybil waxa ay halka ku rakibteen manjaniiq
caruus la odhan jiray oo weynaan inta uu ka qobo kolka la ridayo oo 500 oo nini ay ka howlgeli jireen waxaana ay magaaladii ku furteen muddo 3 maalmood ah halkaas oo ay ugu dambeyntii si xor ah uga soo daayeen hablihii muslimiinta ahaa burcadiina ay cagta la sameeyeen sidoo kalena waxa uu maxamed halkaas ka dhagax dhigay masjidka jaamici magaalada ugu dambeyntiina 4000 oo ciidankiisii ah ayuu magaaladaas kaga tagay waxa kale oo uu dadkii deegaankaas ahaa ee soo islaamay ka kaxaysay ciidan gaaraya 18,000 oo askari marka ciidanka lagu daro 2,000 ee u soo hadhayna waxa ay wadartoodu dhambeed 20,000 oo askari maxamed waxa uu soo dhaqaaqay dhinacii uu ka xigay boqor daahir oo isagu wato 50,000 oo askari waxaana uu ahaa boqor geesi ah oo khibrad dagaal oo badan leh sidoo kalena aad uga da'weynaa 17 jirkan boqorkani waxa uu watay maroodiyaal waaweyn oo waxa ay maroodiyaasha ku shaqleen biro kuwaas oo ciidanka u ahaa derbi adag oo hor socda iyaguna waa ay ka kor dagaalamayeen sida shayaadiinta arrintan waxa ay maxamed bin qaasim ku noqotay caqabad weyn balse xeelad cajiib ah ayuu dejiyay waxa uu amray kolka hore in mar la wada eegto fallaadhaha indhaha maroodiyaasha sidii ayayna yeeleen waxaana ay tani sababtay in qorshihii ciidanka daahir uu burburo dagaal adag ayaana maalintaas fooda la istaray waxa uu culaysku fuulay ciidamadii daahir kadibna inta uu ka soo degay boqorkani maroodigii uu saarnaa ayuu dagaalka ku soo biiray balse iska hor imaad adag kadib waxa boqorkan gacantiisa ku dilay maxamed bin qaasim isla markiibana jaanta ayay hinduugi rogeen sidoo kalena gabadhii boqorku uu qabay iyo jaariyadihiisii markii ay guuldarrada arkeen ayay isgubeen qofka kaliya ee qoyskiisii ka badbaadayna waxa ay ahayd inaan uu boqorkaasi dhalay halkan waxa uu maxamed ka faa'iiday qaniimo aad u weyn waxaana uu xajaaj u soo dhiibay 120 milyan oo dirham iyo waliba madaxii boqor daahir xajaaj oo aad ugu farxay waxa uu yiri hadalkii xariiqda galay ee ahaa cadhadayadii waa ay degtay waana aanu aar gudanay waxaana aanu faa'iido ahaan helnay 60 milyan iyo waliba kurkii boqor daahir hore ayuu maxamed u sii socday 17 jirkani kaliya ma uusan ahayn geesi dagaal yaqaan ah ee waxa kale oo uu ahaa hogaamiye wanaagsan magaalooyinka inta aanu seef iyo dagaal ku furan ka hor ayuu dadka degan qalbiyadooda sii furanayay kadib marka ay maqlaan akhlaaq wanaagiisa cadaaladiisa cafiskiisa iyo habdhaqankiisa wanaagsan waxaana magaalooyinka intooda badan ay dadku u furayeen iyaga oo jeclaaday maamulkiisa badibana wax dagaal ah kala kulmin isna waxa uu ka xoreeyay boqoradii kibirka badnaa ee dadka ku amar ku taagleen jiray bulsho aad u badanina waa ay soo islaantay maxamed waxa uu u jihaystay dhinaca magaalada Multan oo ah Pakistan ugu weyn sida ay imika tahay oo kalena barigaas waxa ay ahayd magaalo diinta iyo macbadyada iyo waliba sanamada caan ku ah tusaale ahaan sanam aad loo jeclaa oo magaalada ka dhisnaa wadaadada u shaqayn jiray oo kaliya ayay tiradoodii 6,000 oo wadaad ka badnayd bulsho aad u badanina magaalada way yaaleen dadkii magaalada degnaa way ka dhaga adeegeen oo way ka xidheen magaaladii isna muddo bilo ah ayuu go'doon ku hayay kadibna nin ayaa tusay halka ay magaalada biyuhu ka galaan dabadeedna wuu ka xidhay biyihii isla markiibana dadkii magaaladu inta ay haraadeen ayay u ogolaadeen in ay magaalada si nabad ah ku furaan waxaana uu ka soo galay albaabka markii dambe loogu magac daray ee loo bixiyay maxamed bin qaasim ilaa maanta ku yaala oo ay magaaladaasi caan ku tahay waxa uu maxamed burburiyay sanamadii iyo macbadyadoodii isagoo oo halka ka helay dahab iyo macaadin tirobeel ah oo aan kuwa la mid ah hore dagaal loogu furan sidoo kalena fardihii ay wateen ciidanka muslimiintu waa ay bakhbaktiyeen kadib markii uu xanuun ku dhacay dabadeedna fariin ayuu u soo diray xajaaj markii ay fariintaasi xajaaj soo gaadhay ayuu u soo diray 5,000 oo faras iyo 1,000 awr oo sida khal maxaa yeelay xanuunkaas khalka ayaa dawo u ahaa waxa kale oo maxamed loo keenay warka sheegaya geerida xajaaj taas oo uu aad uga xumaaday balse muu niyad jabin ee waxa uu u dhaqaaqay duulaan kale oo uu ku qaadayo boqor doohor oo ay ilmo adeer ahaayeen boqor daahirkii uu dilay kaas oo bunjaab ciidan ku diyaarinaya waxaana uu u tallaabay dhinaca Hindiya markana Ilaahay waxa uu qoray in uu maxamed guusha siiyo oo si fudud ayuu uga takhalusay ciidankii boqorkaas isagana uu dhigtay dhiigga u daray arrini markii ay halkaas maraysay ayaa waxa geeriyooday boqorkii Umayyiinta ee Waliid bin Cabdilmalik waxa xilkii qabsaday Suleymaan bin Cabdilmalik oo ay cul daahigo ay xajaaj ahaayeen Suleymaan aad buu xajaaj iyo qoyskiisaba u necbaa sidaas awgeed waxa uu Ciraaq u magacaabay nin kamid ah hogaamiyayaashii isna xajaaj necbaa kan oo la oran jiray Saalix bin Cabdiraxmaan Saalixna waxa uu xajaaj hore u dilay walaalkii Aadan halkaas ayayna cadhada uu qaba ka soo jeedaa hogaamiyahani markiiba waxa uu casilay Maxamed bin Qaasim isagoo u uskanaya in ay ninkii ay cadaawadu ka dhaxaysay xajaaj ahaa ay ehel yihiin waxaana uu booskiisii u soo magacaabay nin kale oo Yasiid bin Kabsha la oran jiray sidoo kalena Yasiidkan iyo barasaabka Ciraaq loo magacaabayba
labaduba waxa ay aad uga xumaadeen xaasidnimo iyo cuqdadna ay ka qaadeen wiilkan yar ee guulaha waaweyn soo hooyay. waxaa mucjiso ku noqotay in bulshadii deeganeed Bakistaan iyo qaybo Hindiya ka mid yihiin ka sinaayeen jacaylka Maxamed. xataa Buddhismkii iyo Hinduugiiba geeridiisa iyo kolkii la casileyba aad ayay uga xumaadeen ugana baroor deeqeen oo muddo dhan ayay geeridiisa kadib murugaysnaayeen. Yasiidkani markii uu soo gaaray Bakistaan oo xilligaas dhulka Sindhi la odhan jiray ayuu si xun ula macaamilay hogaamiyihii la casilay ee Maxamed ahaa. kadibna waxaa soo carartay inantii uu dhalay qordaahirkii uu Maxamed dilay, waxaana ay Yasiid u sheegtay iyada oo ka faa'iidaysanaysa xiqdiga uu hogaamiyahan u hayo inuu Maxamed xoog u adeegsaday oo uu farxumeeyey. reer aan ku socday Roome igu eriyay ayay xaaladii noqotay. Yasiid oo awalba la'aa meel uu u cuskado ayaa arrintan sabab weyn ka dhigtay. inta uu Maxamed jeebeeyey oo silsilado ku xidhay ayuu u soo diray Ciraaq. badhasaabkii Ciraaqna waxa uu u diray jeel ku yaala magaalada Xajaaj u dhisay Waasid la odhan jiray. halkaas ayaa jirdil ay xaasidnimo sababtay loogu geystay, waxaana uu nabarradaas u dhintay sanadkii 95aad ee hijriyada isagoo 23 jir ah. sidaas ayay xaasidnimadu u noqotay midii hogaamiyahaas muslimka ahaa ee akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsanaaba loogu dawgalay. dembigaasina markiiba waa uu cadaaday in uu been abuur ahaa kadib markii ay gabadhii arrintaas khilatay. sidoo kalena Yasiid bin Kabshihi Bakistaan ka soo jeebeeyey 15 cisho kadib markii been abuurka la sameeyey ayuu isna dhintay. intaas ayaynu barnaamijka ku joojinaynaa. inoo sii sheergaray oo la wadaaga saaxiibadiin intaynu barnaamij kale ku kulmaynana nabadgeno.